dowladda hoose ee magaalada Boorama ayaa bilowday in ay ku wareejiso qandaraas qaatayaashii kuwaasi oo ah shirkadaha gaarka loo leeyahay oo hirgelinaya wadooyin carratuula oo laga hirgelinayo magaalada Boorama dhexdeeda. wadooyinkani ayaa waxa isku xidhi doonaan xaafadaha kala duwan ee ay ka kooban tahay magaaladani Boorama. wadooyinkani ayaa tiradoodu waxa ay dhan tahay 4 wado. laba ka mid ah waxa hirgelinaya shirkadda dhismaha ee Dhidar, halka mid ka mid ah ay hirgelinayso shirkadda Hon Engineering. halka tawada ugu dambaysa ayaa waxa hirgelinaya dowladda hoose ee magaalada Boorama. munaasabadii lagu wareejinayay wadooyinkani shirkadahaasi gaarka loo leeyahay ayaa waxa ugu horeyntii ka hadlay xogayaha dowladda hoose ee magaalada Boorama Cabdikariin Xaaji Cismaan, waxaana uu ka warbixiyay wadooyinkan la hirgelinayo. waxa kale oo dadka qurbajooga ee u dhashay Somaliland gaar ahaan gobolkan Awdal kula dardaarmay isla markaana u soo jeediyay inay ka qayb qaataan horumarka gobolka gaar ahaan wadooyinkan la dhisayo. bismillaahir rahmaanir rahiim. kulantii wacan wanaagsan dhammaan dadkan dhageysanaya gudaha iyo dibadba. halkan waxa nasiib wanaag noo ah, farxad weyn noo ah. magaaladuna mar hore aan sheegnay inay u jahaysatay inay horumar sameeyso xagga wadooyinka. magaaladani waa magaalo bilicsan. magaalooyinka dadka Soomaalidu degan yihiin waxa lagu tilmaamaa magaalooyinka ugu quruxda badan. ha yeeshee dhibta ugu badan ay haysatay waxay ahayd wada la'aan. hadda ka hor waxaad ogtihiin in dhowr wado ay noo suurto gashay annagoo kaashanayna Allah iyo dadkeena gudaha iyo dibadda degan, hay'adaha caalamka ee nala shaqeeya iyo dawladaba. imkana si wanaag iyo farxad waxa noo ah in maanta sida injineerku sheegay aan maanta si rasmi ahaana loogu wareejinayo ama loo bilaabayo wadada tan halkan uu taagan oo noqonayso wado muxuu ahaa jid cadayminka allaha wada weyn aan ka rajaynayno inay laami marka dambe noo noqoto. halka waxa kamaradu ay qabanayso arkaysaan waa nimankii ku guuleystay guud ahaan wadooyin halkan laga hirgelinayo iyo mashruucyo ay naga taageeraan qolo mashruucan GBLG-da oo inala joogan madaxdoodii imika inala joogan wasaaradda arrimaha gudaha iyo qolada naga caawisa iyo la taliyihii degmada ee mashaariicdaasi. waxa weey ciidamo maqna ceelno uma qodna. maanta wax weyn barnaamijkeenan waa dhowr wado ayaa la furayaa. waxa weeyaan 3 wado ayaa la furayaa. waxaanu dadkana daawanaya wax kasto kalaba oo lagu hawshooda haddii madhadhal lahayn waxa noqonaysaa nin daaminaya foosto dabada ka daloosha. laakiin haddii qofku uu diyaariyo wax horumar ummadan u noqonaya, haddii wado la sameeyo, haddii la sameeyo isbitaal la sameeyo, haddii dugsi la sameeyo, waxa laga yaabaa ummadani in faca ka dambeeya. waxa kale oo halkaasi ka hadlay injineerka dowladda hoose Mudane Galde oo isaguna ka sheekeeyay sidii lagu bixiyay wadooyinkani isla markaana ka soo sheekeeyay marxaladii kala duwan ee ay soo martay wadooyinkani shirkadaha gaarka loo leeyahay. imikana waxaan joognaa jidka la yiraahdo Sheikh Galde Road. jidkan wuxuu ka bilaabmaa wadada Amuud tagta ayuu ka soo bilaabmaa wuxuu ka talaabaa kalbartkan imika xaggan inaga xiga wuxuu socdaa ilaa masaajidku yaalla Kuwait ayuu socdaa. cabirkiisu waa 1 kiiloomitir, balse wuxuu leeyahay 2 kalbart ama 2 meelood oo ay biyuhu ka baxaan, mid meynara iyo mid meejara. kalbartkan weyn waa 72 mitir isaga ballaadhkiisu, ka kalena waa 15 mitir ballaadhkiisu. waxa ku guuleystay haddaba mashruucan oo ay ku soo tartameen 8 company ayaa ku soo tartamay. waxa ku guuleystay company-ga la yiraahdo Dhidar Establishment Commerce Company ayaa ku guuleystay. qiimaha uu ku qaatay ee aanu shalay tole lacagta 40% ama 40% ugu horeeya aan ku siinay waxa weeyi $23828. kullay hawl weyn baa hortaalla. halkan imika waxa jooga injineerkii iyo gudoomiye ku-xigeenkii company-ga oo ah Cabdi Cabdilaahi iyo injineer Cabdi Samad
iminkana iyagaan ku wareejinaynaa waddadaasi si ay hawshoodaas u fushadaan hawshana ay berri towle u qabtaan. waxaa kaloo halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah injineeradii shirkadihii gaarka loo lahaa ee qaatay qandaraasyadan lagu hirgelinayo wadooyinka laga hirgelinayo magaalada Boorama. Khadar Maxamed Xasan, Xidigta News, magaalada Boorama.